maamulka dawladda hoose ee degmada Salaxley ayaa si rasmi ah u bilaabay garoon ciyaareed oo loogu talagalay dhalinyarada degmada Salaxley inay ku ciyaaraan. Dhalinyarada degmada Salaxley ku nool ayaan markii hore lahayn garoon rasmi ah oo ay ku jimicsadaan isla markaana ay ku ciyaaraan. Arrintaasi oo ay dhibaato ka haysatay iyadoo laga duulayo baahiyahaasi ay qabeen dhalinyarada ku nool degmada Salaxley ee ku aadan dhanka ciyaaraha iyo sidii ay u heli lahaayeen garoon ay ku ciyaaraan. maamulka degmada Salaxley ayaa si rasmi ah u bilaabay garoon loogu talagalay inay ku ciyaaraan dhalinyarada degmada Salaxley. Dhismaha garoonka cusub ee sida rasmiga ah loo bilaabay waxa ka hadlay maamulka degmada Salaxley oo ugu horeeyo maayarka degmadu Maxamed Cabdi Haariye, maayar ku-xigeenka Maxamuud Bedel, xogayaha fulinta Cabdinuur Carab iyo sidoo kale xubno ka mid ah golaha deegaanka iyo mas'uuliyiin kale. markastoo ay helaan ciyaaro meel ay ku madadaaloodaan maskaxdooda kobcaysa jidhkooda dhismaya marka run ahaantii anagoo ka galo deegaanahan ka duulayna ahmiyadda uu leeyahay inay dhalinyartu hesho garoon ay ku ciyaarto ayaanu kala fadhi ugu dambeeyay ku ansixinay halkan waxaan uga mahad celinayaa ilaahay ka sokow golaha deegaanka degmada Salaxley oo runtii wixii ay kolba maaragtay ayagu soo ansixiyaan ee ila qaataan aniguna fulintiisa aan bilaabo waxaan leeyahay golaha deegaanka aad iyo aad buu mahadsantihiin garoonkan runtii anagu golo deegaan ahaan ama degmo ahaan waxaan imika u haynaa fulinayna qorshaha noogu jira 30% oo ah deyrka inaan dhamaystirno gudahana leveling sameeyno hadii ilaahay raahdo inta markaan qabanno waxa dhimaya taraboonadii waxa dhimaya roogii waxa dhimaya maxay ahayd dressing roomski waxa dhimaya maxay ahayd servicekii toiletski waxa soo dhimaya waxa dhimaya qashaafadihii insha Allah taala inta dambana ilaahay wax ka rajeenaynaa ummadeeduna kulli insha Allah taala naga qayb qaadan doontaa kulli dawladuna insha Allah taala naga qayb qaadan doontaa iyo cid kasta oo maartay marka horta interface-ka hore dhameeyno een baahin doona insha Allah taala waxyaabaha dhimaya laakiin anagu imika horta inta hore ayaan fulinaynaa waxaan leeyahay dadweynaha degmada Salaxley aad iyo aad baa u mahadsantihiin ugu mahadsantihiin garab istaagiina runtiina mar walba qorshayaashan la nimaadno inaad nala fulisaan maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu bilownay Salaxley Stadium haddii alla yiraahdo wuxuu dhammaan doonaa si dhakhso lagama warwarayo inuu dhammaan waayo cid kasta oo degmada Salaxley ah ururada bulshada way ka qayb qaadan doonaan oo waanu ku soo dhaweynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa laakiin waxaanu ku talagalay inuu muddo degdeg ah ku dhamaado haddii alla yiraahdo insha Allah waananu ku calaal adagnahay inuu dhakhso noogu dhamaado maayarka iyo golaha deegaankana waanu mahadnaqayaa iyo xogayaha fulinta oo arrinkan ku calaal adeegay annagoon dhaqaale buuran makayn waqtigan oo waqti xasaasi ah iska tahay hadii la bilaabo u dhamaada runtii rajo fiican marka qabnaa insha Allah inuu naga dhamaado dhismo ka imika socda waxaana kullu fikirka markuu nooleyn maayarku anna waa ku waafaqnay waa ka gaadiidku waa taagan yahay dhismo waa socda insha Allah waana dhamaanaya mashruucaas ilaahay idinkiisa waa loo dhabar adeegayaa cid kasta oo ma garanaysaa danaynaysa mashruuca inay wax ku darsatay waa soo dhaweynaa laakiin mashruucaas saasoo ku bilaabmay stadiumkaasi dhalinyarada degmada oo runtii ku ciyaaran garoon lahayn markaanu eegnay inay baahi badan u qabaan waa dhalinyaradu waa qayb ka mid ah bulshadii in iyagana la eego iyadoo la arkayo duruufaha adag ee waddanka ku jiro haddana dhalinyarada la eego in baahidooda iyadana waa mid meesha taala marka ilaahay idinkiisa waxaan ka baryaynaa inuu si fudud inooga dhamaado horta waa ilaahay mahadii maanta hadii Salaxley u bilownay garoonkii ciyaaraha weli magaciisa aan la bixin oo loo qal doono insha Allah taala Salaxley Stadium baa lagu qalayaa baan filayaa magac kale loo bixin maayo oo Salaxley Stadium waa ilaahay mahadii muddo 3 sanadood iyo bil ah uu golaha deegaanku joogay inay maanta suuro gashay in siyaaskii loo dhigo garoonkii ugu horeeyay ee degmada Salaxley ay yeelato oo cabirkiisu uu dhan yahay inta garoomada caalamiga dhan
amba garoomada dalka Soomaaliland ee waaweyn goboladu baaxad ahaan ay leeyihiin uu la cabir yahay marka maanta in la bilaabay garoonkii stadiumka ha ee in badan lagu hami jiray markii hore waxaan ka fikiri jirnay talo dhul inta leeg mil heli doona haddana waxa laga fikiri jiray bal in la xayndaabo ama shaqadiisu bilaabato maanta seeskii baa la dhigay mar haddii seeska la dhigay dee waa bilowgii shaqada marka runtii waaxda arrimaha bulshada afkeedii anigoo ku hadlaya runtii farxad gaar ah anaga nootay oo dhalinyarada horumarinta dhalinyarada sportskuna ay yihiin waxyaabaha ay ka shaqeyso dawladda hoose waaxdeeda arrimaha bulshadu runtii aad iyo aad bay farxad igu tahay muddadii aan waaxda mas'uulka ka ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa fulinta oo go'aan ka qaadatay dhanka kale waxaa halkaa ka hadlay qaybo ka mid ah dhalinyarada iyo kooxaha ciyaartooyga ee degmada Salaxley iyo sidoo kale odayaasha degmada kuwaasi oo soo dhaweeyay dhismaha garoonka cusub ee ciyaaraha ee degmada Salaxley iyo dhammaan wixii hawshan ku aqaasimay sida gudoomiyaha iyo maamulkiisa aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa soo kale waxaan dhalinyarada sportska waxaan xagan hambaliyada ugu dareynaa dhammaan sida loo saasay sababtoo ah garoon la'aan baan dishay marka hore board baan ku ciyaari jirnay boardkii aan ku ciyaari jirnay maanta waan ka reesanaynaa ilaahay baana mahadaas kale mar labaadkana waxaa mahadaas kale gudoomiyaha iyo dhammaan maamulkii la garab istaagay hiiliyaho aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhammaantood marka ugu horeysa waxaan mahadnaqayaa ilaahay baa mahadle marka labaad golaha deegaanka ee degmada Salaxley marka saddexaad waxaan mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Salaxley Maxamed Cabdi Haariye oo u bareeray garoonka intan leeg inuu dhiso maalmihii wanaga nagu lahadan nahay guddida horumarinta garoon baan bilaabayaa waxaan ka moodaynay yacni waxaan dhismaynin ama aan bilaabmaynin runtii waxaan leeyahay waa geesigii degmada taariikhdaana xusi doonta maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay garoonkan ciyaaraha kubadda garoon ballaaran weeye waxaan u mahadnaqayaa oo mahadnaq ballaaran u mahadnaqayaa marka hore ilaahay baa mahadle marka xigtana waxaan u mahadnaqayaa golaha deegaanka degmada Salaxley ee uu hogaaminayo gudoomiyaha Haariye waxyaabaha ka dhinaa Salaxley waxa kamid ah caruurtu waxay ku ciyaari jirtay kaymo sharshareeran oo qoryo ku mudayaan kubadda maanta garoonka uu sameeyay garoomadii caalamka ka dhisnaa ah waxaan leeyahay qurba joog iyo qulqul joog iyo reer miyi iyo cid kasta waanu kugu garab taaganay maayar waanu din mahadnaqanaa dhammaantiin waxaan u hambalyeeynaa maayarka degmada iyo golihiisa deegaanka oo ku dhiiraday inay mashruucan hirgeliyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa raguna wuxuu tala leeyahay go'aan qaadashada markuu arrin soo qasoo inuu go'aan qaataa markaad go'aan qaato waxa way ku dhameystirmayaan marka arrinta maanta aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa Mawlid Maxamed Siciid degmada Salaxley.